الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان ولا لها مسلمين تامل كستو أي شوغان إلهي سبحانه وتعالى أوقاتنا أي عمرنا أي مالكنا أي أهلكنا أي أولادنا الله بركة أيو قدقة علماء مساجد كالصحابة مقالة مقدشة وحنفيلا يا أسبوع كهرباء أهيد مركة إعلاميين برنامج كصابصا afuri walaalkaaga sooman ayna cadeeyeen in mas'uuliyadaas ayagu u istaageen khayrkaasna ay culimadu u taagan yihiin alxamdulillah dad badan ayaa ka qayb qaatay oo u istaagay meelaha kala duwan adduunka jooga qof wax yar uga qayb qaatay iyo qof boqolaal uga qayb qaatay intaba ilaahay miisaankiina xasanaadka Allah yeelo ilaahayna sadaqa la aqbalay ilaahay agtiisa Allah in kaga dhigo aadna u baxsataan maalinta aad ugu baahi badan tihiin wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam qof sooman qofkii afuriya wuxuu leeyahay ajarkiisa oo kale maxaad u malaynaysaa qofkii 10 qof afuriya 30 qof 100 qof qofka afurinaya maalinkii ajarka uu asagu helaya ka sokow imise ajar la egbo intaas uu afuriyay uu ka helaya wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam qofka u taagan miskiinka iyo haweenka garoobaha ah iyo kuwa dhibaataysan intaba nabigu wuxuu tilmaamay inuu la mid yahay qof waxa weeyaan maalinkii oo dhan sooman habeenkii oo dhan qiyaamul leyl u taagan ayuu la mid yahay fadli weyn baa ku sugan walaalayaal masaakiinta oo la saacido oo la garab istaago gaar ahaan xaaladan culus ee waxa weeyaan adduunka cudurkaani uu qabsaday oo dad badani waxa weeyaan ay u dhinteen kuwa badanna ay waxa weeyaan isbitaalada u yaalaan sadaqadu waxay leedahay si gooni ah ilaahay masaa'ib badan buu qofka uga rafciyaa masaa'ib badanna ilaahay waa uga difaacaa maadaama mashruucaas marka waxa weeyaan culimadu u istaageen idinkuna aad ka qayb qaadateen hadda hal asbuuc taqriiban ayaa hadda uu marahaya mashruucaas afurinta ah dad badan baana ka faa'iideystay oo masaakiin ah oo guryahooda raashin loogu qaybiyay qaarna waxa weeyaan cunadii oo bisil oo loo diyaariyay la siiyay ilaahay baa ku mahadsan subhanahu wa ta'ala juhdigaas aynu laba laabno si waxa weeyaan bishaas dhamaadkeeda ilaa dhamaadkeeda waxa weeyaan aan noqono dad afurinahaya dadka sooman u taagan ilaahayna subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyo waxa lagala soo xiriirayaa masaajidka telefoonkiisa asagu uu leeyahay ama EFC-giisa oo ah furo 92 22 80 lambarkaas ayaa qof walba uu ku soo shubahaya wixii uu awoodo waxaana gacanta ku haya Sheekh Cabdullaahi oo ah maamulaha masaajidka ayaa gacanta ku haya khayr badan Allah idin siiyo aynu mar labaad juhdigeena laba laabno wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.